بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho tacsidaas oo la xiriirta Allah u naxariistay geeridii ku timid injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow oo ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir isla markaana ahaa duqii magaalada Muqdisho oo maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho waxaan tacsi khaas ah u dirayaa eheladiisii iyo qoyskiisii gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii walaalihiisii iyo qaraabadiisa dhow oo aan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo wuxuu ahaa halyeey qaran wuxuu ahaa nin daacad ah wuxuu ahaa nin iimaan badan wuxuu ahaa nin dib badan ku soo bixiyay in qarannimadu istaagto waxaan leenahay eheladiisa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay idinkaga hayaan abaal weyn abaalkaas oo ah xoogii uu bixiyay Allah u naxariistay injineer Yariisow waxaan maanta magacawnay guddi ka shaqeeya Allah u naxariistay aaska gudoomiyihii gobolka Banaadir guddigaas oo hogaamin doona ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xubno kala duwan waxay qaban doonaan aas qaran oo loo soo agaasimo sida uu heer sarreeyay hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahay samri iimaan hanaga wada siiyo isagana jannatul firdaws Allah ka waraabiyo aamin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh كل بس يقبض كذا على دقدق يصير دقدق hagaag dhawaan warbaahinta waxaa la hadlaya maamulka gobolka Banaadir xubnahan ka jooga oo ugu horeeya fiidoo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud tuulaha gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo mahad alle oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ku simana ah waxaa kaloo jooga Cumar oo isaguna xogayaha gobolka Banaadir iyo Saalax oo isaguna xogayaha gobolka Banaadir waxaa dhammaantood ay la hadlayaan warbaahinta iyagoo ka hadli doona geerida Allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo ku geeriyooday dalka Qatar dhaawacii soo gaaray kadib إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم حرس قدومي يقول كبنادر أحمد كمجالدة عبد الرحمن عمر عثمان إنجينير يريسو ووقت لو نلحق جيريسا وكبريودي وطن قدر مجالدة الضحى عبد الرحمن يريسو هو قدومي يقول كبنادر أصله شغلنا يدركسا أيو داوعمي داوعمي أي الله قاضي ساس أيو كبريودي وحان إلهي يوقف qoriyana in Ilaahay jannada ka waraabiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir oo meeyar ku ahaa waxaan ugu tacsiyeenayaa geeridii xanuunka badneed ee ku timid gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow intaa kadib annagoo raacana awaamirta madaxweynaha waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo 3 maalin ah oo waxa loo dhawaaqay baroor diiq ah in calanka dawladda hoos loo dejiyo iyo calankii qaranka Soomaaliya إن شاء الله وحلا مقعد بجدي وأنا كمية هاي جدي قاسنا وحكا فديسدونان قاب كله أصلها يا قاب كله كن لها وده كمية كيسة وحنا لوصل مدونا أسكران ونقول ما موسيو بدميه نجيريودي إلهي جل كورابيو إنا لله وإنا إليه راجعون وحكى له رباينا أنا أبغى طبعا يو تضبط دقمو إني أيقون على كهوس ودجان
oo ay ayaguna macnaha awaamirta madaxweynaha ay fuliyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddana sida qorshuu yahay waxaa hoos loo dhigayaa calanka iyadoo sida mas-uuliyiinta gobolka banaadir ay sheegeen halkaa 3 maalin waxaa la dejinayaa hadda calanka gobolka banaadir iyo calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waa ka calanka gobolka banaadir oo la dejinayo sabab la xiriirta geerida gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer Yariisow. injineer Yariisow ayaa ku geeriyooday dalka Qatar sida mas'uuliyiintu halkan ay ka sheegeen. waxaa la keeni doonaa magaalada muqdisho iyadoo aas qaran loo sameyn doono labadii calan sidaas ayaa lagu dejiyay. waa gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer Yariisow. warbaahinta ayaa halkan joogta iyo koox kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir. calanka gobolka banaadir oo mar labaad la dejinayo burburka ka xageeya calanka waa saameyntii qaraxa. cabdiraxmaan Yariisow sawirkiisa ayaa halkaa ka muuqanaya iyo sawirka kale ee madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. calanka gobolka banaadir oo mar labaad la dejiyay. warbaahinta iyo waxaa jooga mas'uuliyiinta. xaalka gobolka banaadir waa sidan. waa hagaag hagaag وهجاج وريال aan ku jiro waxa ay codsadeen in la helo muuqaal muujinaya goobtii dhacdo ka dhacday laakiin waxa la sheegay in warbaahinta loo ogoleyn. كامبينج راح هيست انه waxaa biidsa ku xirnaa وهجاج وهجاج aqalka dawladda hoose ee xamar ayaa la joogaa. dhammaan mas'uuliyiintii ayaa hadda goobtan isaga baxaya oo ah xarunta dawladda hoose ee xamar. xaalku waa sidan. وهجاج waa ka xarunta gobolka banaadir oo lagu sugan yahay. goor sii horeysay kuwan waa ciidamo ka mid ah kuwa dawladda hoose ee xamar. labadii calan ee gobolka banaadir ayaa hoos loo dejiyey. waxaa mahadsan daawadayaasha guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii aan kaga jirnay ama live-kii xarunta gobolka banaadir. allahu naxariisto gudoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan injineer Yariisow oo geeriyooday.